Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Marka koowaad waxaan rabaa in aan kugu hambaliyeeyo in aad doonaysid inaad cilmigan baratid oo aad ugu aansatay inaad cilmiga network-ga aad runtii heer ka gaartid oo aad noqotid network administrator ama network engineer. Aad kuna soo biirtid bootcamp-kan dhammaystiran. Marka waa 90 days oo qofku uu maaragtay uu ku baranayo 9 maalmood oo qofku wuxuu ku baranayo bootcamp dhammaystiran oo qofku uu ku baranayo cilmiga networking-ka si uu network administrator buuxa u noqdo eebeydankii. Marka inta aanan u gudbin waxyaabaha aan baran doono iyo cilmiga meesha ku jira waxaan rabaa laba qodob oo very important ah inaan meesha ka saarno oo isla fahanno. Kow, yaa ku soo biiri kara barnaamijkan, yaa ku soo biiri karaya qofkee ayaa barnaamijkan ku soo biiri kara oo maaragtay barnaamijkan ku soo biiri kara taa marka aynu ka yara jawaabno. Okay, marka qofka barnaamijkan ku soo biiri kara waa kuma. Barnaamijkan guud ahaan waxaa ku soo biiri karaya ama ka faa'iidaysan kara waa qof walba oo doonaya in uu cilmiga network ama xirfad cusub inuu barto oo doonaya cilmiga networking-ka in uu barto oo xirfad ahaan uu u barto cilmigan. Right, marka taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaa barnaamijkan ka faa'iidaysan kara ardada jaamacadaha dhigta oo ama IT wax la xiriira dhigta iyo maaragtay computer science iyo waxyaabaha la xiriira. Waxaa kaloo barnaamijkan ka faa'iidaysan kara dadka jaamacadaha dhameeyay already maaragtay ama shaqaynaya ama maaragtay raba inay sii horumariyaan cilmigoodii. Waxaa ka faa'iidaysan kara sidoo kale dadka shirkadaha ka shaqeeya oo already IT-ga iyo waxaan ka shaqeeya si ay cilmigoodii u afeeyaan ama sharpening ugu sameeyaan cilmigoodii oo ay runtii u noqdaan kuwo wax badan og oo runtii shaqadana si wanaagsan u baranaya. Right, marka barnaamijkan runtii haddaad tahay beginner iyo haddaad tahay qof meel dhexa waxaan ka fahansan oo wax yaqaan labadaba waa ay ka faa'iidaysan karaan. Qofka beginner-ka ana meel hooseynu ka bilaabaynaa barnaamijkan markaasaanu haddana intermediate u gelaynaa markaasaynu haddana advanced u gelaynaa. Barnaamijkan marka wuxuu ku bilaabanayaa qaab base ah ayuu ku bilaabanayaa oo runtii aasaasi ah ayuu ku bilaabanayaa ilaa aynu ka gaarno heer advanced ah ilaa aynu haddii ilaah yiraahdo aynu ka gaarno. Right, marka waxaan rajeynayaa inaynu aanu isla fahanay taasna. Marka qaabkaasuu barnaamijku u bilaabanaya. Marka qof walba waxba ugu jira oo qof walba meel uu kala qabsan karo ayuu leeyahay haddii ilaah yiraahdo. Right, marka arrinta labaad oo aynu rabno inaanu isla fahanno waxa weeye barnaamijkan muxuu seebuu u diyaarsan yahay. Barnaamijkan wax requirement ama lagaa doonayo miyaa jira. Barnaamijka waxa ugu weyn oo lagaa doonayo waxa weeye in aad waxan ama cilmigan danaynaysid oo aad doonaysid inaad xirfadan ay dhab kaa tahay daacad kaa tahay inaad baratid annaguna min bilow ilaa dhammaad inaanu maaragtay ku fududayno meesha aad lahayd guide dhammaystiran hagid dhammaystiran inaad heshid ayaa muhiim ah. Right, marka taa waa midda lagaa doonayo. Qofkuna de inuu basic-ga computerka waxa yaqaano very important way. Right, marka barnaamijkan isagoo aan ognahay inuu certification international yahay laakiin haddana waxaan u bilaabaynaa qaab base ah oo la isla bilaabi karayo oo cid walbana isla bilaabi karayso haddana aan aad loogu dheeraanay oo mar walba wixii nalaga doonayayna aan rabno inaanu gaarno. Marka barnaamijka basekiisa ugu weyn waa inaanu imtixaankan internationalka ah aad geli kartid berri ka maalin oo maaragtay CCNA-da 301 weeye halkaa raalli noqda. Imtixaanka dambe weeye kan oo dee maaragtay 2020 wixii ka dambeeyay markii la update gariyay ayaynu gelaynaa. Marka 2021 oo barnaamijkan weliba waa up to date oo aynu maaragtay 2021 oo barnaamijkan aynu dib u bilaabayno ma garanaysa haddii ilaah yiraahdo. Right, marka insha Allah haddii ilaah yiraahdo waxaad awood u yeelan doontaa inaad imtixaankan internationalka ah aad geshid hadhow haddii ilaah yiraahdo. Marka imtixaanku muxuu yahay? Imtixaanku wax kale ma ahan cilmigii markaa baratid oo cilmigii xirfadii network aad baratid oo aad baratid isku xirkii kombiyuutarradii networkii wixii oo dhan routerradii switchadii wixii aad baratid lagu shaqaynayay oo IT dhammaystiran aad noqotid. Marka hadda waxaad u baahan tahay meel shahaado ku siisa. Marka Cisco oo ah shirkadan internationalka ah oo caalami ah ayaa imtixaanka bixisa oo shirkad Mareykan ah. Shirkadaas certified ba noqonaysa. Marka wadan walba aad tagtid caalamka laguma dhahayo aqoontaada ma aqoonsanin iyo kuma garanayna iyo kuma fahansanin iyo waxa cidna ku dhihi mayso oo de runtii de shaqadii horay ayaad ka bilaabaysaa haddii ilaah yiraahdo. Right, qodobka labaad marka aan doonayo wax weeye barnaamijkan yaa weeye who am I yaa weeye qofkan doonaya barnaamijkan in la socodsiiyo. Marka barnaamijkan waxaa la socodsiinaya anigoo ah
engineer abiyad marka dadka almost in badan oo kamid ah IT-ga ama network ku taxan oo waxaba la socotaan in koorsadii hore aan sameeyo base-ka ahayd 2016 meelahaas in badan runtii ilaa 10,000 oo arday ilaa 15,000 oo arday ay runtii ay kasoo faa'iideysatay oo cilmiga network ay dhigtay maantana waxa weeye waa almost 5 sano kadib yaan mar labaad haddana maaragtay career dhammaystiran oo maaragtay cilmiga network aan bilaabaya marka waxaad halkaa garanaysaa waxaan inay ii ahayd shaqo base ii ah inaan cilmigan baro iyo inaan ku shaqeeyo labadaba marka shakhsi ahaan waxa aan haystaa maaragtay ama bartay markii hore computer science oo degree ka qaatay sidaas oo kale haddana waxaan degree labaad ka qaatay leadership and management wax loo yaqaano hoggaanka iyo maamulka haddana mar kale waxaan ka qaatay master degree maaragtay IT-ga ama information technology waxaan haddana master labaad ka qaatay entrepreneurship and leadership oo hoggaanka iyo ganacsiga maaragtay ama ganacsiga hal abuurka ganacsiga la xiriira sidaas la mid ah waxaan si gaar ah ugu takhasusay network-ga oo maaragtay iyo inkastoo waxyaabo kale la ii raacaan laakiin network-ga markay hadda soo koobno inta adiga ka qusaysa inaan network-ga ku takhasusay markaana aan la shaqeeyay shirkadaha ugu waaweyn ee Soomaaliya aan kala shaqeeyay network-ga ama cilmiga networking aan kala shaqeeyay waxaan u shaqeeyay asa maaragtay network maaragtay core engineer core network engineer ayaan ka shaqo bilaabay kadibna waxaan noqday network administrator haddana network engineer ayaan noqday muddada intaa la eg ayaan kusoo dhex jiray marka almost hadda waxaan kusoo dhex jiraa cilmiga network ama ku shaqaynayo shaqada networking-ka waa muddo ka badan 7 sano oo maaragtay runtii aan sameeyay si rasmi ah u sameeyay waan aan u implement gareeyay network wana network mana iyo network lana right sidaas oo kale waxaan si rasmi ah maaragtay gacanta ula galay firewall iyo waxyaabo kala duwan oo shirkado kale oo runtii xitaa siskada ka duwan ah iyo maaragtay safaradii iyo hawlihii oo dhan marka runtii si rasmi ah ayaan maaragtay uga shaqeeyay oo ma ahan kaliya wax aan macallin ku ahay laakiin waa shaqadayda caadiga ah inaan maaragtay aan hawshan oo kale aan qabto waa shaqadayda asaasiga ah ayay ka mid tahay alright marka si contactiga marka koobaad waxaan rabaa si barnaamijka aad ula socotid inkastoo muuqaalkan mar walbana hadda casharkii aynu wadno haddana sometimes haddii casharkan youtube-ka oo kale aad ka daawanaysid halka hoose ayaan waxaan kusoo qoraynaa groupka aad kusoo biiri kartid si aad bootcampka dhammayska tiran cilmiga network aan ku baranayno from A to Z aad ugu soo biirtid halka hoose qaybta commentiga ayaanu dhigaynaa alright sidaas oo kale WhatsApp lambarkii ayaad arkaysaa oo aad maaragtay contact aad ka samayn karaysaa si aad barnaamijka ama koorsada aad maaragtay aad ugu soo biirtaa hadii Ilaahay yiraahdo alright wahga marka aynu marka u soconno hadii Ilaahay yiraahdo qaybta ku xiga marka waxaan si officially inta markaynu hawsha aynu isla fahnay waxaan si officially kugu soo dhaweynayaa maaragtay networking-ka ama bootcamp-kan dhammaystiran ama networking master class-ka ayaan kugu soo dhaweynaya haddii Ilaahay yiraahdo bootcamp-keena dhammaystiran insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo right marka welcome soo dhawow assalaamu calaykum waxaanu marka u gudbaynaa haddii Ilaahay yiraahdo qodobkeena xiga marka qodobka ugu horeeya aynu markaan isla fahno waxa weeye how do we train sidee halkan dadka wax barnaa marka engineer abid ayaan kan xiisad ku dhigaya oo network ku baraya laakiin qaabkee ayaynu wax u baraynaa marka la soconaysaan ardayda barnaamijka faysanaysa wadamo kala duwan ay joogtaa iyo meelo kala duwan laakiin wax weeye how do we train sidee ayaanu dadka wax u barnaa marka waxaan rabaa inaan taa aan kula wadaaga haddii Ilaahay yiraahdo marka koowaad alright marka number 1 waxa weeye wax walbana waa si garanaysaa cilmi walba oo qof la barayo ama xirfad ha noqoto ama wax kale ha noqotee waxa muhiim ah in qofka theory-ga laga dhiso alright marka waxaanu ka dhisi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo theory ahaan waxaan inaad fahantid muxuu yahay muxuu ku saabsan yahay waxyaabo kala duwan aan dhiganaynaa conceptiyo kala duwan OSPF HRP DHCP NAT maaragtay routing-kii ayaanu baranaynaa maaragtay dynamic routing-kii static routing-kii right marka sidaas oo kale waxaad baranaysaa waxyaabihii security-gii la xiriira ayaad baranaysaa iyo adeegyadii kala duwanaayo services-ka marka waxyaabahaas waa advanced topics multi level maaragtay multi HRP magaratay multi area OSPF iyo wax la mid oo kale ayaad baranaysaa marka waxyaabahaas aan sheegay muhiim ah in waxba ka garanaysa muhiimadu waa inaadan muhiim ma ayna wax garanaysa muhiim ma ahan in aad wax ka garanaysa laakiin waxa muhiim ah inaad waxaan hadhow bay kugu soo dhici doonaa wixii macallinku waa ugu horreysay noo sheegay marka barnaamijku saas waa laakiin si fudud u bilaabayna waa maxay waxaan ayaan ka bilaabayna halka ugu hooseysan ka bilaabayna si aan isla qabsano oo wixii aan isla fahanno marka ugu horeysaba intaan kugula soo boodo casharro adag ama meelo adag waxba kaaga bilaabi maayo baydinki right marka sidaas oo kale waxaanu ardayga siinaa handouts cashar walba
oo aan dhigayno ama sharaxayno markaasaasoo kale hadda oo kan ugu horreeya sala ahaan wax ardayga la sheergareynaya markaba waxa la sheergareynaya haddii ilaah yirahdo hand outka ayaa la sheergareynaya alright marka sidaasoo kale waxaan isticmaalaynaa boardkan aan mar walba wax ku calaamadino oo saan oo kale ah sometimes whiteboard ayaynu tegi karnaa inkasta oo tan ay noogu filan tahay waxaan marka isku dayi doonaa oo meesha inoogu jira wax loo yaqaano virtual classes lab classes runtii markaan u baahatid inaad 30 waag hore dhibaato ahaan jirtay networka marka la rabo in la practice gareeyo dadka lacagta haysta u baa network baran karay sababta qof kale dhib bay ku ahay way kugu adag tahay 15 router inaad soo gadatid oo kiiba $10,000 la siinayo inaad isku xirtid switch layer 3 switches 5,000 7,000 waxa inaad inta soo qaadatid aad isku xiratid oo network aad isku diyaarsatid runtii aad ayay u dhib badnayd laakiin maanta waqtiga la joogo hawshu waa inoo fududahay si fudud ayaana runtii aad u practice gareyn kartaa network adoo virtual lab adeegsanaya marka virtual labku muxuu kaga duwan yahay labka rasmiga runtii wax walba waa isku mid wax alaale wuxuu kaga duwan yahay ma jirto haba yaraatee waxba dareemi maysid isbedela markaad shirkada rasmiga u wareegatid laakiin kaliya difference u dhaxay wax weeye kan labka ah virtualka ah wax weeye waadan taaban karin oo kaliya marka kan kale waa taaban kartaa xoogaa wixii maaragtay si kalena waa laga yaabaa inaad u fahantid markaad maaragtay dhex gashid laakiin wax ku qasban tahay haba yaraatee inaad hadda aad ku bilowdid haba yaraatee maaha sababtoo anigan kula hadlaya markaan baranayay koorsadii ugu horreysay waxaan ka bixiyey $500 ayaan ka bixiyey in aan cilmiga networka aan bootcamp aan dhigto marka runtii waa u quuray weliba arday baan ahaa aad bayna dhib igu ahayd in aan markaa wax dhigto waxaan waayay semester computer science kan dhiganayay markaasoo kale arday baan ahaa jaacada markaa dhigta marka runtii aad bay dhib igu ahayd inaan $500 aan wax ka bixiyo runtii markaas jaacada aan dhiganayo dhan waxa weeye semesterkii waxay ahayd $150 wax noocaas marka waa garan kartaa $150 inay jaacadii oo dhan ugu dhiganayo tababar 18 bari soconayana inaan $500 ka bixiyo marka runtii idinku waxaad haysataan fursad wanaagsan sababtoo ah markaas ardadii barnaamijka aan ku bilownay aad ayay ugu adkaatay inay wixii fahmaan la dhiganayay dib weyn ayay ku noqotay oo runtii waaba ay la qabsan waayeen sababtoo ah wax weeye ma garanayaan in maxaa la yiraahdaa wixii complex way dad kala duwan oo gobollo kala duwan ka yimid oo injineer ayaa live u baranayay oo shirkado weyn ka shaqeeyay marka macallinkii si advanced wuxuu dhigayaa una boobsinaya marka runtii aad ayay dhib ula ahayd in ay la socdaan ardada oo barnaamijka ay macallinka la socdaan dhib bay ku ahayd laakiin idinku waxaad fursad ku haysataan inaad haysataan macallin wixii af Soomaali kugu fahansiin kara wax alaal waxaad u baahan doodan aad ku soo celin kartid group arday iyo community aad wax la baranaysid oo ku caawin karta mar walba ku share gareyn karta hadii Ilaahay yiraahdo maarta aad sameyn doonto hadii Ilaahay yiraahdo marka arrintaas waxay ku fududeynaysaa groupka halka hoose linkiga ayuu inoo yaala halka kaga soo bir hadii Ilaahay yiraahdo videoga YouTube ka daawanaysid right marka runtii arrintaas waa taa marka ardadana ardada inta badan barnaamijka sida rasmiga ay isaga diiwaan gelisana waxa ay mar walba ku jiraan group VIP ah oo si gaar ah su'aalahooda iyo hawlahooda looga jawaabayo right arrinta kale waxa weeye waxaan idinla wadaagi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo inta maartay barnaamijku inoo socdo virtual ay raahda real world experience aqoonteeda guud oo cilmigan u leeyahay maadaama waxaan muddo ku soo shaqaynayay maxaa la yiraahdaa idinla wadaago marka waxaan idin sheeka dhaafay markaan laabka ku soo bartay qaabka virtualka oo muddo ku soo shaqaynayay shirkadii ugu horeysay oo aan yimid oo qalabkaas iskada markaan dabcan ka shaqo bilaabo runtii waxa weeye wax isbedelo bala ama dareemin macnaheedu computerka dabka fiilada dabka siisa umba switchka iskadana dabka siisa marka ama routerka iskada dabka siisa marka waa isku mid fiilada dabka siina marka meesha laga daarayo iyo inaan console-ka ku xiriirsado xarig yar oo lagu xiriirsada inaha wixii sawir guud ka hayay iyo wixii aan isku xiriirsaday taasi configurationka ugu horeeyay ayaanu sameeyay switchadii ugu horeeyay hore ka diyaarshay markaana runtii waana lagu shaqo bilaabay right marka anaa wax la weydiinayo leelaha saan maxaan sameynaa ama kan maxaan sameynaa shirkadina markaas oo kale waaba ku cusbahay oo maxaa la yiraahdaa qalabkii aad ay ugu cusbaayeen marka qaabkaas ayaan runtii aan ku shaqo bilaabay waana aaminsanahay adigana same concept inaad haddaad cilmigan aad diyaarisid oo aad fadhiya aad tagtid oo qof diyaarsan aad shirkad ka shaqo bilowdid in adiga wax lagu weydiinayo macnaheedu yaanta koobaad waa iskaga qasban tahay shirkad markaad tagtid bisha koobaad in adiga shirkadda lagu barbaro shaqaalaha lagu barbaro meelaha marmaris lagu barbaro laakiin wax markaa ka dambeeya tii caadi baad ola qabsanaysaa hadii Ilaahay yiraahdo marka sidaas oo kale waxaan insha Allah aan inta karaankay ku dadaali doonaa
inaan experience-ga aan idila wadaago maaragtay wixii guud oo maaragtay aan cilmigan ka leeyahay sidaas oo kale waxaad idinkuna samayn doontaan wixii su'aalo ah ayaad maaragtay hadba soo bandhigi doontaan oo halka hoose aad igu soo weydiin doontaan ama gruubyada VIP-ga oo ku jirtaan aad igu soo weydiin doontaan haddii Ilaahay yiraahdo marka laga tago casharadii iyo cilmiga aad baranayseen arrinta kale marka aynu rabno inaanu meel isla dhigno waxa weeye how to get most out of this training marka sida ugu fiican oo tababarkan aad uga faa'iidi kartid sidee ugu guuleysan kartaa in road mapkan aan dejinay oo 9 maalmooda in aad ku noqotid qof network engineer ama network administrator sidee riyadan macquul ku noqon kartaa sidee looji ku noqon kartaa inaad 9 maalmood gudahood aad ku noqotid network administrator buuxa oo garanaya xataa haddii wax kaa maqan waxa kaa maqan garanaya maxaa raahdaa aqoontiisii hore ku darsaday cilmigan dheeriga uu bartay iyo xirfadan dheeriga uu bartay ku darsaday runtiina ku caanamaala sidee ku noqon kartaa marka adduunkan wax walba aad arkaysid waa si fudud laguma gaari karo laakiin runtii waa ay fudud yihiin sida loo bilaabi karayo kaliya waxaa laga doonayaa muuqaalkan hadda aad daawanaysid sida hadda u daawanaysid in aad u daawatid maalmaha soo socda ood u joogtaysid oo kaliya ayaa laga doonayaa oo kadibna wixii laab ah mar walba samaysid macalinka wax weydiisid ardada wax weydiisid waxay ku calcalisid ilaa barnaamijka aad ka dhamaysanaysid alright marka inahaas unbaa base u ah marka qodobka koowaad oo laga doonayo waxa weeye si aad arrintan ama maaragtay uga mira dhalisid yoolkaada ah in aad noqotid network administrator ama network engineer mustaqbalka in aad uga mira dhalisid waxa laga doonayaa number 1 dulqaad casharada sometimes waxa weeye waa adkaan karaan sometimes meelaha maaragtay sidii loogu talagalay ma noqonayaan laakiin waxa laga doonayaa inaad dulqaad samaysid oo aadan maaragtay markaba horey ka baqan oo horey ka cararin ayaa laga doonayaa okay qodobka labaad waxa laga doonayaa wax badan in akhrisid marka casharka inta badan aniga dee wixii waan kuu soo koobaya muhiimadoodii waan ku baraya ilaa maanta aniga buug kuma aqrin kara 2000 oo page ma aqrin karo waadna ogtahay buug 2000 oo page markaan sadar u akhriyo 10 sano soo socoto waa dheeraanaysaa inaan maaragtay sanaday qaadanaysaa 3 years ama waddan bay qaadanaysaa in maaragtay la dhigo marka laakiin waxa anigu aan samaynayo waxa weeye wixii anaa kuu soo akhriyay waa ku koobaya muhiimadan ku siinaya muhiimada marka wixii adigu aad fahantid yaa waxaad samaynaysaa lagaa doonaya inaad muhiimada ku ekaatid lama rabe waxaa la rabaa inaad wixii markaa maadaamaad fahantay aad buug dheer akhrisatid wixii akhrisatid research ku samaysid buugtana waa idinla sheer garaynayaa marka laga tago casharada aan dhigayo sidoo kale iyagana waa idinla sheer garayn doonaa haddii la meelo badan oo resources ah laakiin meelo kaloo badanna waxaa la rabaa inaa aadid oo aad cilmigii aad haddii ilaah yiraahdo aad ka faa'iidaysatid alright marka arrinta saddexaad oo aad koorsadan sida ugu fiican uga faa'iidi kartid waxa weeye practice more waxaa lagaa doonayaa in aad practice badan samaysid ood waqti badan gelisid inaad casharkii samaysid practice garaysid ku calcalisid aad isku daydid haddii ilaah yiraahdo alright marka wax sameeyo aad ila samaysid marka sometimes waxaad samayn kartaa inaad muuqaalkii daawatid kadib markaa aragtid waxaan sameeyey oo dhammaystiran haddana soo bilaabatid oo markaa la samaysid practice-ka ayaad samaysan kartaa si haddii aad muuqaalkii iyo practice isku garabowtid waxa laga yaabaa sometimes inaad ku wareertid meesha loo socdana aad fahmi weydo ayaa laga yaabaa ask more waxyaabaha ugu fiican oo lagaa doonayo si barnaamijkan ugu guulaysid waxa weeye inaad ardada su'aal weydiisid macalinka su'aal weydiisid community baynu samaysanay marka communitygaas in wixii la iscaawiyo ayaa la doonaya su'aasha adiga aan kaaga jawaabay ma aha in arday kale markuu i weydiiyo aad macalinka sugtid laakiin waxa laga doonaya inaad u jawaabtid haddii ilaah yiraahdo sidaasoo kale inaad ka jawaabtid su'aalaha inaad ka jawaabtid waxay ka dhigan tahay inaad wax baranaysid inaad wax taqaanid ay ka dhigan tahay laakiin haddaad iska aamustid wixiina online yahay ama virtual yahay oo meelo kala duwan ardada ka baranaya wixii intaad iska aamustid adiga kugu ekaato dee wixii inaad wax baratay maxaa ku garan kartaa inaad saxan tahay maxaa ku garan kartaa waxaa lagaa doonayaa rehearse inaad wixii aad taqaanay dib u soo celisid ee lagaa doonaya oo la sheergaraysa ardada oo sometimes wax la xalisid oo ardada u joogtid ayaa lagaa doonaya haddii ilaah yiraahdo waxaa lagaa doonayaa consistent and punctuality in aad joogtaysid waxbarashadii aad dhiganaysay punctualna aad noqotid oo daacad aad ka noqotid hawsha tan iyo shaqadan iyo guushan aad doonaysid inaad gaadhid haddii ilaah yiraahdo iyo inaad aamintid inaad samayn kartid si walba aqoontaadu tahay si walba u liidatid qofku hadduu wixii isku daydayo ugu dambeyn wuu samayn karaa qasab ma adiga 9 maalmood inaad ku dhamaysid dadka qaybtood maybe waxay ku qaadan kartaa maybe waxay ku qaadan kartaa 4 bilood bay ku qaadan kartaa maybe 6 bilood iyo ku qaadan kartaa maybe hadaad iska tartiibso sanad dhigo ilaan casharadii mar haddii lagu sii daayo lagaama kansalayo oo weligood way kugu jirayaan meeshooda alright laakiin waxaa muhiim ah consistency macnaha in aadan waxan ama cilmigan ama waxan aad baranaysid in aadan marna ka leexan
oo maxaa la yidhahdaa aad wadid ood ku calcalisid okay marka waxaa lagaa doonayaa in aad haddii ilaah yidhaahdo aad arrintaas samaysid oo aad aaminsanaatid in aad ku guulaysan karto okay marka waxaan u talagalnay 9 maalmood wax ka yar in qofku uu almost ku dhameeyo haddii ilaah yidhaahdo laakiin kuma qasbanid inaad ku dhamaysid casharada mar walba way kugu jiri doonaan haddii ilaah yidhaahdo وهجاك مركا waxaan rabnaa inaynu hadii ilaahay yiraahdo isla fahanno Cisco certification maxay tahay Cisco certification kuna ama dhabaha la aadayo oo shahaadada internationalka oo caalamiga ah la aadayo maxay tahay inaan wax ka fahanno hadii ilaahay yiraahdo right marka si aan taa u fahanno number 1 waxaan laba qodob inaan ku fahansiiyo kow shahaada caalami shahaada caalamiga waxa laga wadaa looma baahnaba in aad jaamacad ama meel gaar ah shahaadada ku siiso معناها شهادة accomplishment waa ka qaadan kartaa oo jaamacadda waa ka qaadan kartaa inaad tababarkan dhamaysatay oo iska muhiim oo si fiican u tarsanaysa laakiin caalamka waxa la sameeyay shahaadooyin international ah salaha hadda waa aragtay waxaad maqashay Englishka si lagu aqoonsado waxa la yiraahdo IELTS ayaad aragtay IELTS ma filayaan ira qaldo laakiin IELTS soo kale weey ama TOEFL baa maqashay oo Englishka waa shahaadooyin maxaa la yiraahdaa Englishka marka inta badan markaad jaamacad dibad u aadaysid waxa lagu leeyahay imtixaankii caalamiga ahaa oo Englishka aad gashay keen shahaadadaadii iyo inta gashay marka lacag baa la bixiyaa maybe dhowr boqol kadibna imtixaanka la galaa marka saas oo kale imtixaanka marka aad gashay oo baasti waa lagu aqoonsan yahay caalamka oo dhan meel walba aad tagtid internationally certified baa saas oo kale pilotyada waa garanaysaa shirkada waxa jirta ayaat wax noocaas la yiraahdo oo bixisa waxyaabaha la xiriira maartay qofka maartay inuu pilot noqdo ama waxyaabahan wax international ah inuu qofku noqdo marka waxa ka dhiganta any company oo in the world waxa uu lugaya waxa uu lug gareynaya ama eegaya qof maxaa la yiraahdaa bartay oo shahaado caalami ah wata ayuu raadinaya okay shahaadadaas caalamiga ah marka ayaa sidaas oo kale aad wada socotaan accountingka waxa jirta mid la yiraahdo ACA ayaa jirta okay ACA oo accountingka dadka maartay ay dhigtaan oo shahaado caalami ah marka saas oo kale ayaa network wuxuu leeyahay shahaado caalami ah okay taa waxaan jeedaa shahaadada inaan isla fahnay muhiimadda ay leedahay marka shahaadadan maxaa yiraahdaa waa ay ka sarreysaa wax walba ma garanaysaa oo jaamacadda iyada ka macna badan meel walba iyada ka macna badan laakiin tii jaamacadda miyaad ka wareegaysaa uma baahnid miyaa maya tii jaamacadda waa u baahan tahay oo waxa weeye way ku kabaysaa inkastoo hadda wadamada galbeedka ay joojiyeenba in qofka lagu qasbo jaamacad oo shirkadaha inta badan ay aqoonta kaliya qofka fiirshaan imtixaan practical ka qaadaan oo qofka asoo weligii degree qaadan oo Google iyo ka shaqeyn karayo okay weligii degree soo qaadan oo Google iyo ka shaqeyn karayo shirkadaha la midka laakiin normally dadka shirkadaha inta badan waa iska garanaysaa waxay rabaan qofku inuu shahaadadiisa qaato marka waa muhiim inaad maartay shahaadadaadina aad iska qaadatid aad bay u fiican tahay oo waa arrin wanaagsan alright marka waxaan rajaynayaa in aan isla fahnay shahaadada waxay tahay marka qodobka labaad waxa weeye Cisco maxay tahay shirkaddan Cisco oo maxaanu iyada u baranaynaa ama wax kala barano marka tababarkeenu Cisco ku base garaysan yahay laakiin saas oo tahay Cisco clear ma noqonayo waxyaabo kala duwan ayaan baranaynaa hadii la yiraahdo oo qaabka aan u qorsheynana waa ku tusi doonaa bilaha qaabka aan u qorsheynana si wanaagsan baynu arki doonaa laakiin Cisco waxa weeye waa shirkadaha ugu weyn caalamka oo qaybta network stable loogu yimaado number 1 ayaa caalamka taa qalabkeedu waa qaali inta badan waxa weeye laakiin waa very stable switch ba daaraysa 4 sano daarnaanaya ma badamayaba ma xumaada inta badan way macnaheedu cilad way ku iman kartaa laakiin normally aaday u fiican yihiin oo ma aragtay waa qalabkooda qalab stable shirkadaha ugu weyn caalamkana ayaga ay la jiraan Cisco waxa la sheegaa inay tahay shirkadii ugu horreysay soo saartay router marka saasay maartay suuqa caalamka maartay number 1 ku noqotay oo ay ku qabsatay marka shirkadaas marka iyada marka waxa weeye ay samaysay nidaam laga doonayo qofka ay samaysay runtii waxyaabo iyada u gaar way jiraan laakiin iyada kaliya kuma eka wixii macnaheedu waxa la baranayo wax iyada ku eg maaha oo cilmiga network guud ayay samaysay guide ah oo la raacayo laakiin ma ahan wax iyada specific ah salaam wax walba iyada aan ku barano shirkadaha kalena way isticmaalaan same concept ay la isticmaalaan wax yar uma kala bedelaysa shirkadaha marka koodkeeda iyada uu ka bilaabanayo oo maaragtay saas oo kale aad sida oo maaragtay ip config kora qoraysid saas oo kale u qoraysid waxa weeye shirkadaha kale wax laga yaabaa inaad maaragtay execute lagu hormariyo shirkadaha qaybtood execute yar oo kale ayaa lagu hormarinaya marka
واساس oo kale shirkad marka wax yar oo kale santiye kala duwan laakiin concept waa isku mid waxa daa mar fahamtay shirkad walba oo aad la shaqaysid qalabkeeda waa fahmi kartaa sida u shaqaynaysana waa aad fahmi karaysaa right marka waxaan rabnaa marka inaanu isla fahanno hadii ilaahay yiraahdo shirkadan entry level keedu iyo associate iyo professional saddexdan ay afartan u qaybsantahay kan marka waa isaga waa u imaan doonaa isaga kan maartay hadhowaad phase 2 waay kan macna phase la adduunka mugtaa laba phase mar walba nolosha waa la kala qaybiyaa hawlaha hadaad saddex geliso waa dhib marka entry level ku qofku waxa weeye in wixii la fahansiiyo oo Cisco certified technician baa la yiraahdaa CCT in qofkani waxaan u fahmo horto bal waxaan maxay yihiin network halkee ka bacga u socda si deeply ana waxaan u fahmo hadii la yiraahdo marka CCT waa ta CCNA wax laga soo gaabshay Cisco certified network associate CCNA da waagu hore waxay ahaan jirtay dhowr iyo 10 xabo ama 10 xabo oo kala duwan oo maaragtay security gaar baa loo aadi jiray wireless gaar baa loo aadi jiray routing switching gaar baa loo aadi jiray laakiin Cisco hadda CCNA di wixii oo dhan waa la kulmiyay wixii oo dhan waxa weeye waxa laga dhigay only this one ayaa laga dhigay wixii oo dhan waana la kulmiyay therefore marka waxa aad u fudud in maxaa yiraahdaa aad shaqadaadi wadatid oo maaragtay wixii oo dhan halkaas lagu soo koobiyo marka halka xaba leh ku shaqaysanaysaa halka xaba ayaad ku shaqaysanaysaa qofka inta badan waxa la yiraahdaa markuu CCNA dhammaystiran uu dhigto waliba waxyaabaha kale ku daro inuu maaragtay degree u dhigmo oo inuu network ka qaatay oo kale inuu dhiganta ayaa la yiraahdaa right marka heerka labaad waaye heerka saddexaad waxa la yiraahdaa professional oo waa gudbi doontaa professional marka takhasus gaar ah aadaysa ama waxa aadaysa enterprise ama waxa aadaysa data center ama collaboration ama service provider ama security marka normally tan ugu weyn oo la aado wax weeye waa enterprise ayaa la aadaa okay marka si aan soo dhamayso enterprise baa la aadaa marka enterprise ayadu waxay diiradda saaraysaa inta badan routing switching kii iyo routerada wixii ayay diiradda inkastoo waxyaabo badan lagu daray laakiin haddana halka ayay diiradda saaraysaa security takhasus gaar ah saaraysaa service provider ku shirkadaha ISP ga waxaasay diiradda saaraysaa saasay marka data centerna waa data center marka saasay marka u kala qaybsantaa marka enterprise kala tirkeeda waxyaabo badan ku jira imtixaano badan ku jira oo saa aragtid 7 imtixaan ayaa ku jira 7da imtixaan inaad gashid miyaa laga rabaa saad CCMB u qaadatid may CCMB kuma qadbo 7 imtixaan aad qaadatid 2 imtixaan aad qaadanaysaa imtixaan koora oo 1 imtixaan koora iyo waxa qaadanaysaa 1 concentration imtixaan takhasusa iyo imtixaan koora enterprise kala tirkeeda u qaybsanta qaybo kala duwan oo tiro badan laakiin marka waxa laga doonayaa imtixaanka koorka inaad gashid iyo imtixaanka labaad marka CCNA imtixaankeeda marka aad kulli soo diyaar garowdid normally waxa lagu galaa lacag almost 300 gaaraysa ayaa imtixaanka lagu galaa CCMB na waxa lagu galaa waa laba imtixaan imtixaanka koowaad oo koorka waa 400 imtixaanka kalena waa 300 okay imtixaan kalena waa 300 okay marka waa laba imtixaan hasa ahaatee ka walwalin ma aha qasab ma ahan ina marka CCNA hadda dhamaysatid ama CCNA marka aragtid ina imtixaanka hore ka gashid qasab ma okay imtixaanka hadhow ayaa gali kartaa waxaad ku qasban tahay ma ahan waa wax aad hadhow aad gali karaysid waxa muhiim ah inaad xirfad baratid aad aqoon u leedahay oo ku shaqaysan kartid marka barnaamijkan aad dhigatid faa'iidooyinka uu leeyahay waxa kamid ah in cilmiga marka aad baratay ka soo inaad imtixaanada marka soo dhajiyo si fudud aad ugu baasi kartid ugu guuleysan kartid inaad cilmigaadi maartay wax dheeri ah ku darsatay xirfadahaadi inaad maartay imtixaankan laftirkiisa aad awood u yeelan doonto insha Allah hadhow inaad gali kartid ayaad awood u yeelan kartaa right marka inahaas oo dhan ayaa ku jira sida imtixaanka loo galana waanu sharaxi doonaa koorsada qaybaha ugu dambeeya alright marka concentration ku bedeli kara ma waxay ugu tala galeen in koorka uu is isbedelin laakiin concentration ku isbedelo marka enterprise da aadid ama security aadid koorka imtixaanka koowaad oo koorka isma bedele laakiin ka labaad ayaa isbedelaya okay marka taas marka waa taa marka alright marka imtixaanka waxa kale oo lagu soo daray CCMB da cusub oo maartay sanad 2020 ka la bedelay waxa lagu soo daray in qofku recognition la siinayo waa goor haduu qofku CCMB da 3 imtixaan bay ahaan jirtay hadda meesha 2 imtixaan tahay saddexda imtixaan qofku marka uu dhiganayo saddexda markuu mid ilaa uu ka dhameeyo recognition meher jir laakiin hadda wuxuu recognition ayay ku siinayaan okay waxyaabaha hadda ay ka kooban tahay marka surface iyo collaboration iyo si ay u xasuusatidna waxa weeye eraygan fudud some children don't eat spaghetti ayaad ku xasuusan kartaa oo ah jumlad fudud oo aad ku xasuusan kartid CCMB da takhasus ka u aadi lahayd hadhow aad artina xasuusatid maartay erayadaas lagu xasuustaa
samta waa service provider collaboration oo children sida ka bilaabata d-dana waxa weeye waa data center enterprise-na waa e security-na waa s marka macnihi waa erey loo soo gaabshay marka aragtid in waxyaabaha enterprise ku jira aan iraahdo CCMB-da ku jira inaad heshid oo levelka labaad levelka saddexaad oo CCMB-ga waa kan CCMB-gi waa kan CCMB okay CCMB waya marka waxaan rajaynayaa marka inaad fahantay waxaan sidoo aadan karto CCIE marka waa expert level waa PhD ba u dhigantaa laba imtixaan weeye marka CCIE-du waa tan tan ayaa CCIE-da waa CCIE-da waxa weeye waxay u dhigantaa waa laba imtixaan weeye imtixaan theory ah iyo imtixaan practical ah ayay u kala qaybsantaa marka I hope inaanu isla fahanay certificationska sidoo kale certificationska website-ka ayaa booqan kartaa oo shirkadda Cisco ayaad booqan kartaa oo ka ogaan kartaa marka for now waxa laga yaabaa inaad dhahdid waxaan waa ku wareerayba waa fahmi lahay aniga waxaan oo dhan maxaad ii fahansiinaysaa marka waxaan ugu talagalnay kaliya waa brainstorming xagee loo socdaa xagee laga yimid ayaan rabnaa inaan ogaano waxaan sameeyay inaad si guud u fahantid ayaan doonin laakiin waxaan ma aha waxaad hal mar wada dhiganaysid ma aha marka annaga waxaan diiradda saaraynaa inaan barano kan iyo inaan barano kan marka labadan ayaanu diiradda isku saaraynaa haddii ilaahay yiraahdo inaanu barano marka labadan waxyaabo kala duwan aan ku sii dari doonaa oo labada kuma joojinayno marka bootcamp dhammaystiran waaye labadaas aan ku baranaynaa si dhammaystiran hal imtixaan waa gelaysaa hadhow imtixaanka CCNA ayaa kugu filan oo aqoontii CCT-gana ay kugu jirtaa imtixaan labaad uma baahnid iyo cilmi labaad iyo hawl labaad uma baahnid haba yaraatee I hope marka inaad fahantay siskada iyo waxaan iyo xagga loo socday iyo maartay meesha laga yimid all right marka barnaamijkana si fudud hayga degdegnina si fudud ayaan u bilaabi doonaa haddii ilaahay yiraahdo isdeen waxaan waa wax adag oo ma bilaabi karaysaa isdeen all right marka waxaan ka codsanayaa mar labaad mar saddexaad in haddii barnaamijka aad danaynaysa daadan website-ku ku jirtid de halkaasiba ku dhantahay laakiin haddii aad ka daawanayso YouTube-ka waa casharada qaybtooda oo kale si free ayaa YouTube-ka u soo gelinay marka halkaa inaad linkiga halka hoose fiirisid oo groupka kaga soo biirtid lambarka WhatsApp-kana aad eegtid oo saa ugu soo biirtid haddii ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa khayr badan ayaan kuu rajaynayaa haddii ilaahay yiraahdo السلام عليكم إن شاء الله وحاهد إنه بلودي أما أنا رمينا وحكي أرجعنا بل توبيك يديه محان كل جنينا حلقة كنا مركز sometimes أرضي وحسب الدنيا ده معلن وين فهمي وحان محان تجاشن بري أوردكت محان 90 why 90 days ومحوس برامج كان وياهي سجاشن مالبود وياهي أو صدق بلو برامج كان محل وقفريسي ما لا بلغ غير ما بلغ عندي alright مركز برامج كنتي آذو دير قفكي رنتي هرو يقانا وبدري مكرية وحوي مقالة كلية maaragtay koorsada ayaa noqon karaya 100 muuqaal iyo wax ka badan ay noqon karaan marka ma aha wax si sahlan runtii macallinkan ba xitaa duubi karin waad garanaysaa 100 muuqaal oo halkii muuqaal waxa weeye intaas maaragtay daqiiqadood ama maaragtay saacad ba gaari karo runtii waad dareemi karaysaa marka shaqada ay leegtahay adiga la firkaada de wixii fiil lahaan ma daawanaysid practice ba sameynaysaa wixii waa fahmaysaa wixii iska raadinaysid isku dayaysaa research samaysid wax akhrisid wixii fahamtay ayaa isku dayi doontaa haddii la yiraahdo right marka waxaan rabnaa inaan halka aragno topics-ka aynu wax ku baran doono ama waxbarashadan topics-ka maaragtay chapterada meelaha aynu baran doono ilaa waxani waa bootcamp dhammaystiran marka bootcamp-kan network aynu baranayno haddii ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa inaan fahanno maxaan ku baran doonaa at the end of this maaragtay haddii ilaahay yiraahdo marka si aan base-ka hore idin kugu sheegay barnaamijkan waxa weeye wuxuu asal u yahay inaanu baranno wax loo yaqaano CCT iyo CCNA labada ayaan isku baranno ayuu asal u yahay okay marka CCT oo marka technician-kii ah CCT-ga technician ah inaad technician level ku shaqayn kartid iyo maxaa yiraahdaa inaad maaragtay network level aad ku shaqayn karaysid right marka associate level oo aad ku labadaba inaad isku marka labada nooc waa xarnaa inaan isku fahno laba shahaado international way marka hal CCNA bas baa kugu filan imtixaankeeda oo wixii hadda halkaas isugu soo ururtay CCNA baad galaysaa imtixaankeeda wax kale uma baahnid hadhow marka waxaan ma aha chapter laakiin waa qaybo weeye waxyaabaha ugu horeeya baran doono waxa kamid ah inaan fundamentalist network si fiican u fahno meesha loo socdo inaan si fiican u fahno okay marka waxa ku xigi doona network access ayaan wax ka fahmi doonaa network access wax walba oo maaragtay waxa la xiriiraya fiiladii samaynteedii kaybaladii maaragtay transmission medium-kii noocyadii kala duwanaa oo jiray maxaa la yiraahdaa switchadii waxyaabo badan ayaa meeshan kugu jira okay network interface card-kii too many things ayaa halkan kugu jira
waxaa kaloo jira connectivity-gii inaan wax ka fahanno iyo surfaceski halkaasna marka waxyaaba badan waxaan ku baran doonaa adeegyada kala duwan ee network-ka la bixiyo waxaan baran doonaa routerkii maaragtay adeegyadii maaragtay routingkii ayaan wax ka baran doonaa oo halkaana maaragtay wax ka baran doonaa switching laftirkiisa wax badan aan ka baran doonaa subnettingkii ayaanu baran doonaa haddii ilaah yiraahdo sida network loo kala jarjaro ama loo qeybiyo waxaasoo dhan ayaanu baran doonaa haddii ilaah yiraahdo right marka waxaa sidoo kale wax ka fahmi doonaa security-ga ayaan fahmi doonaa right marka waxaan rabaa marka halkaa inaan marka halkaa kaa dhex galo arrintani ma ahan oo keliya ii sheeg waxani waa casharkii magaciisii macnihii cashar walba practical ayaa jiri doona aan samayn doono labs ayaa jiri doona joogto ah oo mar walba aan samayn doona haddii ilaah yiraahdo ayaa jiri doona marka taana waa inaad saa ula socotid haddii ilaah yiraahdo aybaha ugu dambeeyana waxaan ku arki doonaa automation iyo programmability oo wax dheer oo cusub oo lagu soo kordhiyey barnaamijka cusub ee maaragtay siskada ay soo kordhisaya waxaan rabaa marka inaan bisha ugu dambeysa ama maaragtay 9 beri maaragtay 30 beri ugu dambeeya aan si gaar ah u barano Windows serverka iyo Linux serverka inaan wax ka barano haddii ilaah yiraahdo marka inta badan maaragtay network oo qofka networking-ka waxa inta badan shaqadiisa qayb ka ah surfaceska marka kuwan takhasus ahaan uma baranayno haddii ilaah yiraahdo laakiin waxaan u baran doonaa inaad wixii concept ka heshid oo wixii aad fahantid ayaan u baran doonaa haddii ilaah yiraahdo oo wixii somehow familiar aad la noqotid si aad shaqadiisa ugu qaban kartid waayo qofka network-ga serverana uu ka shaqeeyaa serverka cid gaar ah hadhow ku tababaraysana ma jirto laakiin serverisku ogow waxay leeyihiin certification iyaga u gaara iyo system iyaga u gaara ayay leeyihiin marka barnaamijka markaan si fudud kugu sheego haddii ilaah yiraahdo within this 90 days bootcamp of networking bootcamp waxaanu si rasmi ah u baran doontaa haddii ilaah yiraahdo network wax walba uu yahay oo asaasi ah wax walba aad u baahan tahay si aad u shaqo bilowdid fikradihii network la xiriiray networkii sida ugu shaqaysan lahayd saad u fahmi lahayd termska muhiimka ahayd si aad maaragtay configurationka u samayn lahayd command line interface baan isula tegaynaa oo shashadii madoobeed oo codingkii baanu qorarkii baanu qori doonaa network haddii ilaah yiraahdo network yaroo LAN aan samayn doonaa network MAN aan samayn doonaa project network waxaan qaadan doonaa gobol to gobol xarun wadan to wadan aan isku xirayna networkiisa haddii ilaah yiraahdo marka inahaasoo dhan ayaanu samayn doonaa haddii ilaah yiraahdo by the end of this 90 days bootcamp you will be able to work as a network administrator inshallah marka aad dhamaysatay programkan waxaad awood u yeelan doontaa idankii in aad cilmiga networka ama xirfadan aad si rasmi ah ugu shaqaysatid oo aad suuqaada gashid oo aadan adiga aysan cidu maaragtay dhinacna ka marin haddii ilaah yiraahdo marka I hope inaanu si wanaagsan aynu isula fahnay waxa aynu u soconno waxyaabo badan aynu taabanay si weynna waa u taabanay oo maaragtay waxyaaba basic inoo ah oo aynu baran doono laakiin waxaan waa guide-ka oo siiska ina siisay oo wax aan ku darsanay laakiin waxyaabo badan oo maqana jira oo aan ku darsan doono haddii ilaah yiraahdo oo aynu ku baran doono laakiin barnaamijkan waa bootcamp dhammaystiran oo ugu talagalnay qofku inuu maaragtay shaqadan ilaa uu shirkad ka shaqayn karayo shirkad rasmi ah uu ka shaqayn karayo inuu ka gaaro haddii ilaah yiraahdo I hope this has been informative for you inaad si fiican u fahantayna aad ayaan u rajaynayaa again waxaa iga xasuusinaa inaad halka hoose mar walba fiirisid oo aad ku soo biirtay haddaad casharkan youtube-ka ka daawanaysid inaad halka hoose aad ku soo dhufatid groupkana ku soo biirtay ama whatsapp-ka nagala soo xiriirtid si aad barnaamijka qaybihiisa oo dhan aad u wada daawatid haddii ilaah yiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير شرط رسول الله عشر كان وحان سيجارة ugu arki doonaa haddii ilaah yiraahdo inaan wax ku fahno terms ama review yar ku samayno bal network waxa uu yahay inaan review yar ku samayno marka waa ognahay shaqo badan u soconnaa waxaanu doonaynaa inaan cilmigan si dhammaystiran u fahno laakiin waxaa muhiim ah mar walba wixii inaanu halka sare ka bilowno wax macna ama soo kordhinayso sababta sometimes wax laga yaabaa in la kala haro oo qof marka meel ba ka dhaca sometimes oo xitaa cilmi u leh wadaad degree qaatay computer science laakiin sometimes wax laga yaabaa inaadan wixii fahmin ama si wanaagsan ba aysan kaaga raadicin waaga jaamacadda dhiganaysa ama main ba uusan ku ahayn cilmiga network marka maadaama hadda aad bootcamp-kan dhammaystiran aad go'aansatay inaad kusoo biirtid oo aad qayb ka noqotid waxaa marka aan isku dayi doonaa inaanu casharka aanu sida meesha ugu horreysa aan ka bilowna haddii ilaah yiraahdo alright marka waxaan rabnaa inaanu sharaxno waa maxay network marka waxaan rabaa in aad fadlan xagga hoose oo maaragtay aad ku qaybta commentiga aad soo qortid network adiga sida u aragtid adoonan casharka maaragtay aan daawan jisa casharka post laakiin halka hoose ku qor sida adigu u aragtid network inuu yahay alright network maxaad u aragtaa inuu network yahay alright marka I hope inaad maaragtay aan isla fahnay qaybtaas
marka waxaan rabaa inaanu marka aan u galo qeexidii haddii la yidhahdo computer network maxaa lagu qeexaa computer network waxaa lagu qeexaa is a group of computers waa koox kombiyuutarra ah that use kaasoo isticmaala set of common communication protocols of a digital interconnections for the purpose of sharing resources located on or provided by the network nodes. Marka halkan waxaan rabnaa dhowr qodob oo muhiima ayaan u calaamsanaa marba mid aan dib istaagno. Computer networking-ka waxa lagu qeexaa koox kombiyuutarra ah kuwaasoo isticmaalaya wax ay ka siman yihiin oo lagu wada xiriiro iyo amaro ama maaragtay protocol gaar u ah ay isticmaalayaan oo ay ku wada marayaan qaab digital ah oo maaragtay nidaamkan hadda xogta loo wada diro caalamka wax walba waa digital mobilada waa digital xogta digital baa lagu diraa inay isugu xiran yihiin ujeedada ugu weyn oo kombiyuutaradan isugu xiran yihiinna waa inay wadaagaan khayraad right marka khayraad waa maxay waa resources khayraadku muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa inaanu qalab wadaagayno oo maybe kana harddiska weyn ku jirtaa kuwa kale la rabaa in la share gareeyaan maybe printer ba meel noo yaal waxaa rabaa inay kombiyuutarada kale dhan share gareeyaan maybe wax kale meel noo yaal waxaa la rabaa kombiyuutarada kale dhan inay wadaagaan maybe software ba meel noo yaal waxaa la rabaa kombiyuutarada inay soo wada galaan waad aragtay bangiyada software ba meel ku shuba software kana dhammaan qofka garowe jooga gaalkacyo jooga hargeysa jooga muqdisho jooga nairobi jooga maaragtay in hal mar ayay ka baxaysaa qofka hadduu lacagta kala baxo bangiga lacagta kala baxo meel walba lacagtu way ka baxaysaa qof walbana wuu arkayaa lacagtii marka waxa la share gareeyay waa software-kii ayaa la share gareeyay marka resources baa la share gareyn karaa resources waxay noqon karaan khayraadku waxay noqon karaan la share gareynayo software wuxuu noqon karaa maaragtay qalab wuxuu noqon karaa maaragtay wax qalaba wuxuu noqon karaa communication inaan wada xiriirayno oo maaragtay xog isweydaarsanayno ayuu noqon karayaa alright marka oo qaybta ugu ballaaranba network qaato communication ama qoraallo la isku dirayo taskiya la isku dirayo fariimo la isku diraayo waxaas oo dhan ayuu noqon karaa marka computer networking-ku halkaas ayuu maaragtay basic yahay marka si fudud aynu u qeexno computer networking is a group of computers waa koox kombiyuutarra that use kuwaasoo isticmaala set maaragtay wax isla socda marka tusaale ahaan common communication protocols protocollo isla socdo set ah tusaale ahaan set dara marka waa maxay waa kabo wax isku eg kabo maybe surweel maybe dirac waxdaas oo kale oo isku eg ayaa set la yidhahdaa soo taas oo kale wey marka protocols oo waa protocollo ayay iskula xiriirayaan oo set ah oo maaragtay isleh kuwaasoo isku xiraya ujeedada ugu weyn ee kombiyuutarada isugu xirnaanayaana waa inay wadaagaan khayraadkaas oo ay bixinayaan network node waxa loo yaqaanaa wax walba oo network ku xirman kara ayaa node noqon karaa marka node wuxuu noqon karaa computer printer scanner maaragtay wax kale oo network ku xiran waxyaabahaas ayaa nodes inta badan loo yaqaanaa alright marka taas waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay okay marka waxaan kaloo rabaa marka inaan wax fudud kuu sheego in difference weyn u dhaxeeyo ethernet iyo internet ay farq weyn u kala leedahay marka internetku waa kan aanu isticmaalno world wide webka aanu isticmaalno hadda markaad page gelaysid magarata waa internet ama youtube ku kala hadda aad ku jirta ama meel kale ku jirtid oo hadda page-ka aad ku jirta ama website aad ku jirtid waa internet marka kan ma aha internet ma aha local area-da LAN marka la joogo ama network-ga LAN-ka local area network dabaq ah xarun xaafad qol network campus ah inahaas oo dhan network laga isticmaalo waa network loo yaqaan LAN-kaasna teknolojiyadu ku shaqeeyo markay fiilada tahay waa ethernet markay bilaa fiilada tahayna waa wifi right marka ethernet waxa loo yaqaanaa teknolojiyadan la isticmaalay marka boortigan aad arkaysid computerka hadda laptopkan godka xaggan meeshan ee gelayso boortiga waxa loo yaqaanaa waa ethernet port ayaa loo yaqaanaa ethernet port ayaa loo yaqaanaa right marka waa kan qoraalkan ku dhawaaqay haddaad waxba ku ragtid halkan umaad ka arkaysaa right fiiladana gelaysana waa RJ45 afkan waa RJ45 fiiladana waa twisted pair ayaa loo yaqaanaa ama si gaara UTP bay noqon kartaa ama STP bay noqon kartaa fiilooyinkan iyo sida loo sameeyana waanu baran doonaa insha Allah hadii la yiraahdo marka ethernet marka waa saa ethernet waxa lagu qeexaa is a family of computer networking technologies koox qoys ah oo maaragtay teknolojiyad computer ku shaqeysa commonly used loo isticmaalo in a local area metropolitan area networks and wide area networks it was commercially introduced waxa la soo saaray 1980kii waxaana standard laga dhigay 1983 by the IEEE 802 standard numberka ayay leedahay marka waa wax standard ah oo waag hore qalabka
kombiyuutarada oo caalamka yaala marka wada xiriiraan dhib bay ahaan jirtay sababta qolo walba waxay lahaayeen wax u gaara marka way adkeyd in teknolojiyadu ama qalabkii kombiyuutarka aaba leedahay in kombiyuutarada kale uu la xiriiro oo maaragtay IBM iyo wixii lamid ah laakiin maanta wax fududaatay qalabkii dhammaan same technology bay isticmaalayaan waxaana aad u fudud in ay isla wada xiriiraan ayaa fudud marka qalabkii wuxuu noqday mid aad u fudud ayuu noqday alright marka waxaan rajaynayaa in aynu isla fahnay oo aanu review macnihii dib baanu ugu noqonay bal network muxuu yahay muxuuse yahay ethernet waxaan rajaynayaa labadaas inaynu si fiican u fahnay halka hoose ku qor wixii aadan fahmin haddii ilaahay yiraahdo hagaag marka waxaynu dhammaynay qaybtii koowaad oo koorsada ayaynu dhammaynay aniga oo engineer abyada aan idinla socodsiinahay hagaag marka waxaanu marka hadda u gudubnay insha allah in aan u gudubno next maxaa inoo ah what's next maxaa inoo ah tilaabada xigta maxaa inoo ah koorsadan saad la socotaan waxaanu la share garaynay ardada oo marka hore kabaan xirin oo wax maartay si public usoo dhignay saad la socotid oo aad socotay casharada kala duwan aad daawanaysay marka waa koorso runtii dhammaystiran ama barnaamijkan network bootcamp aan u bixinay ujeedada waxa weeye qofka in 9 maalmood gudahood uu ku noqdo network administrator ama network engineer alright marka waxaa difference yar u dhaxeeya laakiin conceptigu inaad meel aad halkaa ka ciriirsatid inaad heshid weeye alright marka barnaamijkan replacement uma aha qofka inuu jaamacad dhiganayo ama wixii uu dhiganayay oo ma aragtay laakiin wuxuu u yahay wax dheeri ah oo uu ku darayo ayuu u yahay laakiin uma ahan replacement uma marka barnaamijkan 9 maalmood oo barnaamij dhammaystiran oo completely from A to Z waxaana casharadu loogu ardayga lagu siinayaa 3 bilood oo kala duwan ardayga wuxuu dhiganayaa 3 bilood oo kala duwan bil ayuu kala dhiganayaa from A to Z marka waxaan rajaynayaa casharada iyo waxyaabahan kusoo dhiganayno iyo casharadu siday yihiin iyo waxa aan dhiganayno waxaan rajaynayaa inaan aad uga soo hadalnay oo si deeply uga soo hadalnay wixii halkan ka dambeeya waxaynu geli doonaa qaybtii practicalka ahayd oo inaan environment-geena set up garaysano labkeena aan set up garaysano virtualka ahaa oo arday walba maaragtay uu diyaarsado ayaynu insha allah u gelaynaa haddii aadan weli groupka kusoo biirin linkiga halka hoose ku yaala fadlan isku day inaad kusoo biirtid haddii ilaah yiraahdo haddii aad already barnaamij kusoo biirtay wax kale uma baahnid waxaad u baahan tahay un cashirka xiga inaad u gudubtid haddii ilaah yiraahdo ayaad u baahan tahay marka waxaan rajaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad ugu soo dhaweynayaa haddii ilaah yiraahdo barnaamijkan waxa ugu weyn oo ma aragtay meeshan guusha aad ku gaari karaysid waa consistency waxaan inuu noqdo wax aad joogtaysid oo ma aragtay aadan joojin consistency inaad samaysid oo aadan joojin ayaa laga doonayaa barnaamijka go'aansatid halkaana ka wadi haddii uu qof wax samayn karo adigana waa samayn kartaa haddii qof uu engineer noqon karo adigana waa noqon kartaa hadduu qof noqon karo technician adiguna waa noqon kartaa hadduu qof noqon karo network administrator adiguna waad noqon kartaa kaliya waxay ku xiran tahay dulqaad yar ayay u baahan tahay iyo guide dhammaystiran marka barnaamijkan fursadda ugu weyn oo runtii aad heshay waxa weeye in aad heshid guide dhammaystiran from A to Z meesha ka bilaabi lahayd ilaa aad meesha ku dhammayn lahayd inaad haysid qof ku hagaya ama haga aad haysatid I hope this has been informative for you aad ayaana kaaga mahad celinayaa waqtigaada qaaliga ah oo aadna siisay insha allah sidoo kale fadlan la wadaag barnaamijkan dad kale si ay uga faa'iidaystaan fursadan qaaliga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته